Hey guys, kusoo dhawaada channelka English with Mima. Maanta waxaan sameynaynaa akhriska intaa bilaabin ka hor akhyaaray soo diyaarsada buug iyo qalin ku qor ereyada kugu cusub sidoo kale ereyadaas geli jumlado. Sidoo kale waxaa jiri doona su'aalo aan kugu reebi doono qaybta description-ka. Ka soo jawaab su'aalahaas waxay ku saabsan yihiin sheekada hadda aan akhrin doono iyagu soo diray Instagram-ka haddii aan saxday haddii aan khalado aniga ayaa kula fiirin doono. Aan gudaha u galno sheekadeena. Sheekadu ciwaankeedu waxaa waaye Lisa's best friend. Lisa waa magac, okay? Lisa's best friend waxay noqonaysaa marka Lisa best friendigeeda ama Lisa saaxiibkii ugu dhawaa. When Lisa was 6 years old, Lisa markii ay jirtay 6 sano, she used to live with her parents. Waxay la noolaan jirtay waalidiinteeda in a small house, guri yar ayay ku noolaayeen in the countryside oo ku yaalo baadiyaha. Together with waxay si wadajir ah ula noolaayeen her grandparents. waalidiinteeda oo grandparents waxaa lahaa ayeeyada iyo awoowaha loo yaqaan grandparents. For her 7th birthday, dhalashadeedii 7aad, she got a small puppy. Waxaa heshay ama loo keenay small puppy, yar. Eega markuu yar yahay dog lama dhaho, puppy aa lahaa. Puppy yaraa loo keenay that she named Max, kaasi oo igu magac dartay Max. The puppy became her super best friend. Puppy wuxuu noqday saaxiibkeedii ugu dhawaa eegii loo keenay saaxiib la noqotay. Of course, dabcan, she treated him waxay kula dhaqantay with great love, jacayl aad u weyn. She fed him, way quudisay. Ereygan fed wuxuu ku imaaday waa pastiga ereyga feed, verbka feed, quudintii. Pastiga wuxuu noqonaa marka fed. She fed him, way quudisay and brushed his fur daily. sidoo kale waxay brush gareysay ama ay shanleyn jirtay his fur waxaa lahaa dufta eeygu leeyahay, okay? Duftiisa ayay maxaa lahaye brush gareyn jirtay maalin kasto. They used to go into the woods. Waxay aadi jireen kaymaha. Woods, ereyga wood waa alwaax, sidoo kale macno kalena wuu yeelan karaa markii geedo. Forest oo kaleet, forest waa keen soo mahan. Forestiga wuu ka yaryahay, woodka waxaa waa geedo yaryar oo meel ku yaalo. They used to go to the woods. waxay aadi jireen geedaha ama keenta yar next to her grandparents' little farm. Ee ku xigo grandparents-ka waxay lahaayeen yani ayeedeed iyo awooweed waxay lahaayeen beer yar. Beerta yar waxaa ku agyiila marka woods ama keen yaraa ku agyiila. Keentaas ayay aadi jireen eeda iyo eyga and play fetch. Waxayna ciyaari jireen gameka loo yaqaano fetch. Gameka fetch waxaa waaye eeyaha lagu tababaraa in wax loo tuuro kale sida in kubad loo tuuro kale kubadii uu soo raadi uu keeno ama toy wax lagu ciyaarsiiyo eeyaha jiray waxaas oo kale in loo tuuro ay soo raadiyaan ay ku keenaan. Other times xilliyada kalena Lisa would hide. Lisa waxay qarin jirtay one of her dolls, mid kamida boombiladeeda in the forest. Keenta ayay ku qarin jirtay si ay u just to see, si ay u aragto if Max could find it, haddii uu Max eegi yaraa uu heli karo. And she wasn't surprised. Sidoo kale lama aysan yaabanaynin to see inay aragto how smart he was, sida uu caqlilowgu u ahaa eegi yar, uu caqli badnaa. Every day spent together, maalin walba oo si wadajir ah waqti u wada qaateenna was very fun, wuxuu ahaa mid fun ah. One day, maalin maalmaha ka mid ah, Lisa felt ill. Lisa waxay dareentay way xanuunsatay and needed waxay u baahatay to go to the hospital inay isbitaalka aado. Her condition xaaladeeda was pretty bad, way yara xumaatay. And needed waxay u baahatay surgery, qalliin inay gasho. After the surgery, qalliinka kadib, she immediately started feeling better. Waxay bilowday dhaqsaba inay bogsato. She immediately started feeling better. Waxay bilowday dhaqsaba inay bogsato. But she still had pains. Laakiin weli xanuun ayaa ku dambeeyay. When she got home, markii ay guriga imaaday, she was sad. Way murugsaneed. Because maxaa yeelay, she had pains. Xanuun ayaa hayay. And she couldn't move. Sidoo kale ma dhaqaaqi karin. But laakiin, when they entered the house, markii ay guriga soo galeen, Max, eegii yaraa ee Maxiga ahaa, greeted her, wuu salaamay. Wagging his tail, asigoo sayntiisa luxaya ayuu salaamay. He was so happy. Aad ayuu u faraxsanaa to see her inuu iyada arko. And started wuxuu bilaabay jumping up and down. Inuu kor iyo hoos u boodboodo ayuu bilaabay farxad darteed. He was restless. Eegii yaraa wuxuu ahaa restless.
mid aanan deganaasho ama nasiino lahaynin uu bodboodayay because maxaa yeelay finally ugu dambeyntii he got his friend back. saaxiibkiis ayuu dib u helay, sidaas darteed ayuu u faraxsanaa. When Lisa saw his happiness, Lisa markii ay aragtay farxadiisa, she seemed to have forgotten. waxay u muuqatay inay ilowday about all the pain. xanuunkii dhan inay ilowday ay u muuqatay. and cheered up wayna faraxsaneed. Max saw her smile. Max wuxuu aragay dhoola cadeynteeda and brought wuxuu u keenay one of his favorite toy waxyaabaha lagu ciyaara lahaa bombil iska dheh. bombiladiisa ugu jeclaa ayuu u keenay and placed it on her lap. wuxuu kor saaray dhabteeda. He wanted to play fetch. wuxuu rabay inuu la ciyaaro gameka fetchka ahaa ee intee banooniga tuurto asigana uu soo raadinayo. It was a game. waxay ahayd game ama ciyaar ayuu ahaa that they could still play, ay weli ciyaari kareen, even though she couldn't move easily. inkastoo iyadu aysan si tartiiba aysan u dhaqaaqi karin, laakiin maadaama ay dhaqaaq laga rabin hadda ay iska fadhinayso geedka uu tuurayso asiga uu keenayo, gameka way ciyaari kareen. One day, maalmaha ka mid ah, Max made Lisa surprise. Max ayaa Lisa waxa uu sameeyay lama filaan ama surprise ayuu sameeyay. kadis ayuu sameeyay. He saw that Lisa's mother wuxuu aragay in Lisa hooyadeed had bought ay soo gaday a bag of Lisa's favorite cookies. Cookieska macmacaankii ugu jeclayd Lisa ayay soo gaday hooyadeed, hal bac ayay u keentay. Bag sida caadiga boorso waaye, laakiin marmarka qaar wuxuu noqdaa bac. sidoo kale waxaa lahaa plastic bag oo kale waa lahaa bac noqonaysa. marka plastic bag bac khafiif waaye. He gently picked the bag. si tartiib ayuu u soo qaaday bacdii and went to Lisa. wuxuu u tagay Lisa to surprise her, si uu ugu kadiyo ama kadis ugu dhigo. Lisa had big smile on her face. Lisa dhoola cadeyn weyn ayaa wejigeeda ka muuqday. It seemed waxay u muuqatay that now in hadda it was Max's time to feed her. hadda waxay u muuqatay inay ahayd xilligii Max uu iida quudin lahaa, bedelkii eeda markii yareed eega quudin jirta, hadda Max ayaa quudinaya iyada. During her recovery weeks, intii lagu guda jiray isbuucyadii ay soo bogsanaysay, Lisa was joyful. Lisa waxay ahayd qof farxsan. Joyful waxay la mid tahay happy. Okay? Because maxaa yeelay her best friend, saaxiibkeedii ugu dhawaa, was taking care of her, ayaa ka taxadirayay. And because maxaa yeelay they could still play, weli way ciyaari kareen their favorite game, gamekii ay ugu jeclaayeen. All the pain faded. xanuunkii oo dhan tartiib ayuu u dhamaaday. Fade waxa markii tartiib u dhamaadana waxa loo yaqaanaa fade. Fadedna waa past. All the pain faded. xanuunkii oo dhan tartiib ayuu u dhamaaday. Because maxaa yeelay she could smile again. weli way dhoola cadeyn kartay. The reason sababtay u dhoola cadeynaysana wuxuu ahaa was Max darteed ayay u dhoola cadeynaysay. Of course, dabcan. That's it guys. waxaan rajeynayaa inay wax badan ka faa'iidiin. videoga like gareey, channelka subscribe noo dheh. haddii ay jiraan su'aalo ama mawduucyo aad jeceshahay inaan ka hadalno, noogu reeb qaybta commentiga. See you in my next video. Bye.